xaflad si heersar loo agaasimo ka dhacday caasimadda labaad ee wadanka Denmark ee magaalada Aarhus waxaana lagu soo bandhigay arday tiradooda ay gaarayso 16 arday isugu jira wiilal iyo gabdho. xafladaas oo soo bandhigay markiiska Taqwa ee magaalada Aarhus ee wadanka Denmark oo halkii ay ku xafideen Quraanka Kariim waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo isugu jiraan waalidiin, culamaadiin iyo waxgarad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah summa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'du. أخيارت الضمان رجي ضمر يري وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعفرحنا أنا كوه الله يمركز كالتقوى مناسبة التنقيم كبدن إنه يسقون نمد إنه وينه كتاب كإلهي حفلة ختام كقرآن كريم كأه لحية طبعا أرضي وأدركتان وبنا الكافة ديه إنه أموتشين ديرجلين يا فرحة أن يجا أموتشين إنه وفرحة إنه أموتشين إنه إسلام نمدنا وفرحة إنه أموتشين إنه وينين إنه إلهي سأصدر تدخواني يا أخواتي وحن آدي آد وفرح سنة هاي كسوق قبل كنا وحن رامرك إن شاء الله هاوش يصير إنه قص عنه سترتيب أهان إن أنكسر عدسينا نجوا وقتك كوبينه أن أبي خامرنا دي لا يرادو إسدقيسيقون ونقوم دون إن شاء الله سان رجينا يمدادو قروح بدن وحان رامركينا نكفره سيدا عاددو أينو تهي هدي هل كانوا كلا اللي يسوي مادو وحا إلا تهي هذا وحا أقوه الرئيكان إلهي مركا سادتك وحي هالله يا كدن بيان إنو مركا إن شاء الله كسو دوينو إنو نوقفره أرضي كميدا أرضي دا مركز كتقوى سهيب علي محمد إن قرآنك كريم كائن وغفره كسودو من لي سهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. sidii aan horay u sheegay xafladatan farxadda ah oo uu idin qabtay walaalayaal markiiska Taqwa waxa mudan marka in aanu kelmadii munaasabka ku ahayd mas'uuliyiinta markiiskaas hawshan weyn aad aragtaan qabtay inuu inoo soo jeediyo ra'iiska ama gudoomiyaha markiiska Taqwa al-Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Cumar. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلة دان وين وحلانا هاي مرلبات يا مرسدحات soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina xafladan iyo maalintan iyo maamuuskan aan maamuusayno ardayda quraanka kariimka dhamaysay markaas Taqwa ka qalin jabisay waa arin aad u weyn waa farxad aad u weyn markaas Taqwa hawlaha uu taagan yahay ee uu qabto laf dhabar u ah waxaan rabaa maadaama waqtigu yar yahay in insha Allah ta'ala aan ku soo koobo kelimadan soo dhaweynta iyo mahadnaqa ka bacdi saddex arimood. arinta koobaad waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego markaas Taqwa muxuu u taagan yahay
risaaladu xambaarsan yahay maxay tahay muxuu qabtaa waad ka wada dheragsan tihiin laakiin si aan u gaarsiino inta aan maanta halkaan nasiib u yeelan inay soo fariistaan oo dhageystaan markaskan wuxuu u taagan yahay oo ugu muhiimsan waxa weeye in la badbaadiyo ubadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan iyo inta u dhowdhow inuu ka badbaadiyo dhaqamada iyo badda ay ku dhex jiraan inuu ka badbaadiyo oo uu aakhiriya adduunba badbaadiyo intii awoodda ah inuu u badbaadiyo diintooda akhlaaqdooda wixii ku hayn lahaa inuu dhagax dhig u sameeyo markaska waxa uu qabto oo ugu muhiimsan waxa weeye caruurta ubadka Soomaaliyeed in uu badbaadiyo oo uu maaragtay wadada u jeexo inuu ka badbaadiyo yani xadgudub akhlaaqi ah oo runtii halkan aan joognay aad ugu badan inuu u sheego wadada saxda ah inuu ka badbaadiyo xadgudubka xataa diiniga ah oo ilmihii aan si khaldan wax loogu sheegin akhlaaqdiisa la toosiyo diin sax la baro wax wanaagsan oo uu kaga badbaadi karo dhibaatooyinka uu la kulmayo oo ka hor imaanayo iskuulka ku arkayo magaalada ku arkayo asxaabtii ku arkayo dadku saaxiibada la yahay kala kulmayo wuxuu kaga badbaadi karo isku difaaci karo in ilmihii maaragtay la baro dadka waaweyn hooyooyinka iyo aabbayaalkuna inay isu yimaadaan ku cibaadaystaan diintooda iyo dhaqankooda ku bartaan markasu taqwa risaaladu waxaan baarsan yahay walaalayaal anigoo soo koobayo waxa weeye waa intaas dhibaatooyin badan baa jira oo caruurtu la kulmaan dad badan baa wax u sheega oo kala duwan baa wax u sheega qaab diineed baa wax khaldan loogu sheegaa qaab kala wax khaldan loogu sheegaa intaasba in maaragtay ilmihii laga toosiyo laga saxo waalidka ay ayagoo iskaalmaysanayeen hawsha ayada insha Allah ta'ala inay sida u gutaan qodobka labaad waxa weeye waalidiintan leeyahay waalidiinta ilmahan iyo mas'uuliyadan ina saaran inaga dhamaanteen hal arin bay inaga rabaan waxay inaga rabaan inaan wax barno inaga ma rabaan inaan ayuuto u galno haddaan toos u sheego oo guriyo u dhisno ilmahan wuxuu rabaa in wax la baro wax aakhiriya adduunba anfacaya haddaad toosiso oo aad hadda asaga maal geliso asaga guri dhisan doona asaga samaysan doona mustaqbalkiisa laakiin hadda wuxuu u baahan yahay in cagta loo toosiyo cagta la saaro kelimadda ugu dambaysa walaalayaal waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa awalan macallimiintii arintan maaragtay hirgelisay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazaahumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha ugu daro waxaa kaloon u mahadcelinayaa waalidkii يعني صوم رنتي هول هذا علوس ما أنت من هذه هول فديان وعن إسلام مهد علين وما باهنا ويؤجدان إن شاء الله تعالى وحكلون وقدم بيسينا يا قف كستا أو قيب كقاطي مركز التقوى إنه جيره إنه صافرنا هذا شن يطبن سنة أنت أنا وصاش قايو أيضا وأنا مهد علينا يا ضدك هل كان مارتي هرجلي حفلة قروح بدنا وأن مهد علينا يا مر لبعض مرصد هذه مر أفراد بسود وهذا ومهتنتهين قلبي فرنكسود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ حامد إبراهيم علماء سويدن دكان كميدة خريج جامعة الإسلامية قسم القرآن وأدمودي هذا حفلة عن قبرنا إنما تخصص إنه يهي دكان سيدو كلا قدر ضحى شيخ حامد بارين وكلمة كوبان إن يرادا إنه ونعينه دقيسنه فليتفضل شيخ حامد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة والأخوات من الإدارة الموقرة وحفاظ
كتاب الله ومن الشيوخ الفضلاء الإخوة والأخوات أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أنا كلمة إذا وحن شعلها إن أنصفي عن أسير ركزه موضوع قرآنك كتابك إلهي سبحانه وتعالى برشدي سيدان أغنهي ودن كأني واكو برانشرني meelaha kale oo muslimiintu joogaan oo dhan way ku bartaan wadamada islaamka oo dhan quraanka kitaabka ilaahay waa lagu bartaa waa lagu xifdiyaa waa lagu dadaalaa xifdiga kitaabka alla la xifdiyana fadli farabadan baa ku soo arooray oo insha Allah mushaayikhdu ay ka hadli doonaan oo ay ugu sii weynan badan tahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam qowlkiisii ahaa yuqaalu li saaxib alquraan yani waxa loo yiraahdo qofka quraanka yaqaano oo xifdiya akhri oo tartiib u akhri tajwiid ku akhri sidii aad adduunka ugu akhrin jirtay oo darajadii jannadana ku soco yani markaad meel suurad ama aayad hatta culimada qaarkeed ay yiraahdeen suuradaha quraanku waxay leeyihiin cadadka yani darajooyinka jannada baad ulama sida qurdubi iyo kale ay ku fasireen ku soco la leeyahay ilaa meeshii aad gaarsiisid halkaas aad tagaysaa marka qofkii quraanka xifdisan oo ku amal fali jiray dabcan meesha darajada ugu sarreeyay tagayaa marka quraanka xifdigiisa oo fadliga leh runtii waynu xifdin jirnay wadankeeni meelahana waa lagu xifdiyaa laakiin waxaan isleeyahay anigu nuqdada ugu muhiimsan oo markasta la weydiiyo sida dariiqada quraanka lagu xifdiyo sida ugu fiican anigu waxaan iraahdaa yani aziima go'aan adag marka ugu horeysa bay ka bilaabataa go'aan adag bay ka bilaabataa haddana إلا أن الله سبحانه وتعالى نبي سيودر دارمو يري فإذا عزمت فتوكل على الله توكلك إلهي أضيق أقوان كي قاتي هذا أضيق نفت هذا لا حول ولا قوة لك هاي ستيرينه إلهي تلساره وإلهي سبحانه وتعالى توكلك معنيه سوحوية سبب كينا إنا التي مادد إلهينا أتلذ أوليبتد سبحانه وتعالى وآد إلهي تلسارتد وإلهي اعتمادد إنه إلهي أرنتاس بريدنا إنه كوافتشيه سبحانه وتعالى marka fayda azamta fatawakkal ala Allah azima iyo go'aan la imow markaana yaani ilaahayna tala saaro kuna soco arinta azimada iyo go'aanka aa qaadatayna iska ilaali inay wax ka galaan waxyaalo badan baa ku imanaya nafta oo dadka amarta inuu mataqan qofku iska raaxaysto inuu iska seexdo inuu kada iyo shaydaankii oo ku waswaasinaya waswaas xagaba ka soo galaya kudahaya maxaa isu dhibaysaa dad kale hebel arag hebel kale hebel kula mida jinsiyad kula wadanka kula jooga ila aakhirihi yaani waxyaalo fara badan baa meelo fara badan baa ku tacalluqa hawadii iyo naftii shaydaankii shayaadiinul insi wal jin dad hatta mararka qaarkood kula talinayo ku dhahayo waxba hays dhibinka ila aakhirihi laakiin xaqiiqa yaani asalku waxa weeye ina ilaahay baridi subhanahu wa ta'ala ilaahay tala saar go'aan qaado ilaahay tala saaro ilaahay talada u dhiibo tawfiiq weydiiso kuna dadaal wadadaas inaadan ka soo noqon ka jiba keentid sida aan hadda ka hor oran jirnay nin intuu quraanka inuu xifdiyo damcay oo xogaa ku adkaaday baa wuxuu eegay ceel xarig uu saa u gooyay ama muxuu ahaa yaani ceelkaas sidii loogu jiiday xarigii oo kale ama mararka qaarkood say oran jireen sadar iyo subax keeba badan yaani sadarka quraanka hadii la tiriyo subaxa ka badan qofkii noolaado oo mesela يعني عمري الله سيو 5 سنة 1 سنة 2 سنة دور بلاد انت بقرانك waa lagu xifdiyaa dadku xifdiyay waan aragnay qof walba iyo dadaalkiisa laakiin hadaad maalintii bi 1 saac siisid waxa weeye taqriiban waxaan badnayn baad ku xifdin karaysaa quraankii meeshan maxay khaas la tahay wadamadan hadaan eegno maxay khaas leeyihiin xaqiiqa wax kale anigu ismali khaas bay leeyihiin waxay khaas leeyihiin oo wadamadan uga duwan wadamada kale in bi'ada la joogo aysan bi'a ku saacidaysa yani bi'ada waxaan ka wadaa jawiga iyo meesha qofku joogo meel ugu kaalmaynaysa inaysan ahayn laakiin meel ugu kaalmaynaysa dadku inay quraan ka fogaadaan inaysan baran taana waxaan rajaynayaa dadka meesha jooga badankoodu insha Allah way ka soo adkaadeen naf iyo shaydaan iyo arinta haddana waxaan rajaynayaa inay taa ku sii wadaan waxaan aad iyo aad ugu dardaarmayaa dadka waalidiinta ah inay ku dadaalaan inay kitaabkooda Alle subhanahu wa ta'ala si ay ugu dhaganaayeen ay iyaguna ugu dhaganaadaan ehelkooda caruurtoodana ay kula dadaalaan maxaa yeelay caruur waa la iska dhalaa ma ahane waxay caruurta wax ku anfacid baa loo dhalaa inay naftoodana anfacaan adigana ku anfacaan adiga maxay ka anfacayaan
naftooda hadday qur-aanka iyo diinta ku dheganaadaan adduunkiina waxay garanayaan waddaday mari lahaayeen oo seegseeg iyo kadaa iyo meelo xun iyo meel xun ma aadayaan aakhiradoodiina meel wanaagsan inuu alla geeyaa la rajaynaya oo ay tagayaan hadday waddadaa maraan adigiina way ku anfacayaan adduunka intay joogaanna daacatul waalidayn sidaa ogtihiin labada waalidoo la adeeco ilaahay cibaadadiisuu raaciyey wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaanan baa ilaahay raaciyey soomaa labadii waalidna u ixsaan sameeya sidaa daraaddeed ixsaan bay kuu samaynayaan waa ku maqlayaan qurratul cayn bay kuu noqonayaan il qabowsigeed bay kuu noqonayaan soomaa aakhiro markaa dhime haddaa ka hor dhimatidna way kuu ducaynayaan sida nabiga noo sheegay alayhi salaatu wasalaam camalku wuu go'ayaa ilaa dhowr arrimood maahan waxaa ka mid ah walad saalaxa oo u soo duceeya walad saalixa ilma macnaha suuban oo u soo duceeya soomaa marka intaas maxay ku soo koobmaysaa aakhiro iyo adduunba in ilmahaagu ay liibaaneen adiguna aad la liibaantay hadda waxaan rabaa inaan siiyo akhuuna abu khaalid oo ah markiska waqafka ragga runtii aad iyo aad u garab taagan markiska kan iyo haddii la kuu rayo dacwadiisa iyo khayrka ka socda falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الكرام المباركون لفخر لي في هذا اليوم العظيم بهذا الموقف الكريم بين مدرسين لكتاب الرحمن جل وعلا وبين متخرجين بحفظ هذا الكتاب العظيم. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن اليوم أيها الكرام عندما نرى هذه الثلة المباركة بعد أن رست سفينة العلم وترجل منها فتيان وبنات طاهرات طيبات متوضئات بعد أن ترجلوا وحفظوا كتاب الرحمن جل وعلا لنقف أمامهم محيين مكرمين لهذه الوجوه الطيبة المباركة. إخواني مركا ومضنتهي دادكان دادكي سو ساري خاصة معلمينتي جهدي ku bixiyay in ay quraanka alif u bilaabaan oo ka saxaan ilaa uu ka khatimo in ay soo jeediyaan kelmad ku yeeshaan aad bay u mudan tahay waxaan rabaa marka inaan macallimiinta aan dowrkooda ku soo wareejiyo oo ay kelmad dhahaan mid ka mid aan rabaa inaan u yeero macallim maxamed cabdirasaaq inuu mikrafoon ku soo dhawaado bismillaah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. horta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dugsiga aad waxaa loogu dadaalaa oo aad iyo aad mataqaanaa qof kasta oo bilaabo oo cusub loo sheegaa in higaadda carabiga iyo inuu qori karo akhrin karo inay aad iyo aad mataqaanaa muhiimad u tahay. marka macallimiintu waqti badan waxay ku isticmaalaan cunugu inuu akhrin karo oo qori karo quraanka soo hadhow isu dabaro keligiis. waxyaalaha la baro waxaa ka mid ah in aadaabta lagala hadlo adkaar la baro xusnul muslim sifatu salaati nabiy meelahan tafsiirka quraanka waa ardayda waaweyn inta kalena ardayda yar baa inta badan la baraa waxyaalo badan oo hadda meesha ku qornayna kalena waa la baraa in la waaniyo waxyaalaha lagala hadlo wax noocaas oo kala نشيد أقرننا وأقرية محمد بن محمد المقيت. نور على مر الزمان تألقا وأطال الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. وحان ربا إن شاء الله إن أن أيرو برئ فيدو وأبوان أدقود قرنيسان suugaantii uu maanta ugu talagalay hadhow shaafina waa jiri doontaa insha Allah isaga yaqaan sidoo u dhigahayo laakiin kelmadiisa isna inuu ku yeesho meesha maadaama ay farxad tahay suugaantiisa ku soo dhaweynaya barre bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mashaayikhda macallimiinta ardayda qalin jebisay dadweynaha waalidiinta waxaan ku salaamayaa kulligiin iyo marti sharaftaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas kadib
suugaanta yar inta aanan soo hormarin wax yar oo macallimiinta iyo maxaan ku yiraahdaa mashaayiqdaba ammaantooda way soo socotaa laakiin ammaanay ma timaado haddaan dhaliili imaan ha iska dulqaataano ayaga uma jeedo laakiin xanuun qowmiyadeed baa haya aniga waxaa laga yaabaa waxa qowmiyad la yiraahdo dadku inaysan kala aqoonin qarannimada Soomaaliya baxar bay gali kartaa laakiin qowmiyadu inaysan dhumin sababa sii dhuminaya ayaan rabaa inaan idin sheego ardaydii barakeysneed ee quraanka xifdiyay ee halkan jooga magacyadoodii inaan xifdiyaan isku dayay hal magac aan xifdi kara waxa uga jira dahaba kaarshi maxay bi'iyeen magacyada ah warsame faarax geelle fiidow alasow awo cigaal umar mahadalle naaleeye maxay magacyadaas maxay dhamiyeen maxay bi'iyeen marka anigu hadda intii la ay dhihi lahaa hadda carabigan ku hadlay aniga ana abu najma najma abaheed kaliya hadaan iraahdo maxay iga baa ma saas tiraadaan waxaan ka codsan lahaa macallimiinta sida aad diinta ugu barbaariseen jazakallahu khayr laakiin magaci ha dhumina hal magac kama aqaan ardayda meesha la saf gabadhayda najma oo magaceeda lafteeda 10 sano la xafidsiinay baan ka aqaan iyo dahaba kaar wax dhibaato male geelle warsame awo cawdsay alasow fiido magaceeda waxba yay dhumin caruurta magacadooda loo daayo waxaan ku dhaliilay ma aha macallimiinta laakiin maca waalidiinta abu abdullah saaxiibada iga raal ahaadaan ana carabiga diidanaha macnaheedu ma aha laakiin dhaqankeen inuu dhumaantiiya inta kadib waxaan mar labaad iyo mar saddexaad marka ugu horeysa ragii halka ka hadlay wuxuu aniga 10 daqiiqan lahay shan cunaya shanteeda haliidahay macallimiinta meeshii mahad celinta looga bilaabay way mudan yihiin laakiin koow waxaan isleeyahay waalidiinta ku dadaala caruurta subax walba dugsiga keenayay guriga marka ay tagaan aanu ogolaan inay play station iyo ay isticmaalaan quraanka kaliya ku xafdiya mahadda koobaad iyaga iskale alla ka sokow tan labaadna macallimiinta iskale waxaan rabaa dadka inaan ku baraarujiyo 16 arday ayaa 114kii dhameeyay halka fadhida oo yar yar meesha aan joognana waad garanaysaa sida diinta islaamka ay ka tahay iyo ummadda aan la noolahay waxaan rabaa inaan xusiisiyo caruurtayada quraanka dhameeya Allah barakeeye sidaasay u dhaban qurxan yihiin u caafimaad qabaan faa'iidada adduunka wax la barta wax ugu weynaayay barteen waxa lagu barbaariyaa 7 maalmood 5 maalmoodna isgool ha aadaano labada kana ha nastaan inta ay nasanayeen play station iyo film been ah inta dhageysan lahayn quraarkooda xafdiyeene kuwa caruurtooda yiraahdo noo nasato bal waxay dheeriyeen noo keenan oo kuwaas waxaan ku guubaabin lahaa caruurta 7 maalmood ma aha wax dhiba iyo wax daalka in quraanka la baro ayaan aad ugu guubaabin lahaa waxaan caafimaad iyo wanaag ahayn kama qaadayaan waxaan rabaa reer Ows in ay nala qaybsadaan meesha abu maxaan ku yiraahdaa at-taqwa la yiraahdo maanta 16 arday ay quraanka dhameysay faa'iidada ay noo leedahay in aan ku baraarugno oo waliba inta labadii sano ugu dambeysay ay dhibaato taagneed meeshaas la daba taagnaa oo cadawgeedu badnaa waxaan ku guubaabin lahaa dadka muslimka ee Soomaaliyeed iyo muslimka kaleba inay arintaas waxa ay ka qaban karaan ay ka qabtaan inta kadib mar labaad anu macallimiintii waalidiintii u mahad celinaya una hambalyeynaya ardayda qalin jabisay suugaanta yareed ee iga aadanayd aan wax ka iraahdo awood aan la gaarayn ilaahay umba iska leh mahadoo dhan idilkeed asagay u sugan tahay ujeedada gunteediyo
nuxurka aan u daadego ubadkii ilaahay u sakhiray waxbarashee ka aflaxay qur-aankow owlaad duca qabtaatiin macallimiin la aaminay ayaa aayadaha diin idinkula dadaalo awlaad duca qabtaatiin waalidiin asluub laa idin soo barbaarsho owlaad duca qabtaatiin ubax soo koraayiyo dayax iyo ilaas iyo roob oraaryo da'ay iyo ufo iyo mayay iyo naacaw udgoono waalidiintu eegmada ku ildoogsadanow awlaad duca qabtaatiin waa ammaano diintiye ijaabada aad dhaxashaan kuwa ka intifaaco uurkiya qalbiga iyo ku adkeeya laabtoo aakhiriya adduunkaba aayatiinka ka hantiya haynka dhigo ilaahay haynku xafdiyo kuwii idin baray oo macallimiinta ah iyo kuwa waalidiinta ay ku barbaariyeen ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo noqda kuwa aan u wada ayno mar labaad iyo mar saddexaadba waalidiinta iyo macallinta mahadcelinaya waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hadda siiyo kelmad isaguna kooban Sheekh Maxamed Weheliye fadliga quraanka maadaama maanta waxaynu isugu fadhino waanu xafladan aynu u weyneynayna u qabanayna ay tahay quraanka barashadiisa dabcan fadli buu leeyahay in uu kelmad ka yiraahdo Sheekh Maxamed Weheliye ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله وضع مهدلن وكلمي إن بدن وبرنان كفوك أي كما قنت إله نو زيادة مهدان وحلق سوى قيب قال وحي خير بدناوي وحلا برتا وحي خير بدناوي قف كما قرصان قف كستون نقمده والنفس الشيغان دين تان إسلامك أهمية هي منزلة أولي القرآن كان كريم كأه وكتاب نوع عدينا يا حقيقة كان أوي هاي حقيقة الدنيا وحي تهي حقيقة بني آدم كوحي تهي وكتاب كو عدينا وحي كوغو هبوني وحان كوغو هبونين وكتاب كو كلا سارا يا حلال يا حرام وكتاب كو كلا سارا يا خير يا شر وكتاب كو كلا سارا يا حق يا باطل وكتاب كو كتسينا يا جد كتوسنا يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليمت وكتاب كو كلا سارا يا جد كجنة اللي قلت يا جد كنار اللي قلت مستقبل كلا صار في فوقا كل شيء جاي وحد دعي وحصل صعدة مستقبل كان كل شيء جاي خلائق ذا وحنا هذا ماشي إنه قدام ما ينسى يوحنا كسرنانين ولا لي الفقير واكي فقير واكو كان قرآن قلبي جيس كجرين واكو كان قرآن أقون كان وحلقة حرمينا واكي وكان لقى حرمي قرآن كان كريم كفهم كيسة وكان لقى حرمي قرآن كان كريم كقراءة ديسة وكان لقى حرمي قرآن كان كريم كقدقن كيسة هو يدا الصوماليات عرورتها أركيسان وقاذا إذن ظلم ما يعبس ومسارين وكجرا لكن حقيقة رمتا قالن قاتب بارا وحصو صار وهويو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرآن كمركة وكسو دقي ولقريرا يعليس كيسة واحد دجي وهويو واحد نحفظني ما أنت وهويو دا ذي قرآن كقبتي تاريخ ذو الله يا رجال بيت أو ذي المركة يميدان أو ذا قرآن حفظي الآن ما هي لكن هو يمكن ما أنت ميدا عنده كسارا يهري عن أمقلي هو يوي وحبذا لقى أويسي وحبذا لقى حناجي لكن واحد صمر طولا وليبه هو يدي ويلش هذا شيء قبلها الله بركايه وحيكوه المانت الدقيقة وحي اللي سميه دن واكا واهيسا
cunugaadii oo quraan kalaamka ilaahay qalbigiisa ka buuxo allah barakeeyo aad ku soo dadaashay dib kasta lagu geysto waa hilmaami kitaabkan quraanka meel kasto aad ka soo gashid waa liibaani meel kasto aad ka soo gashid waa liibaani haddaad fahamto waa liibaani haddaad baratid culumtiisa waa liibaani haddaad fasirtid waa liibaani haddaad noloshaada ku dabaqdo waa liibaani walaalayaal meel walba aad ka soo gashid waxaad tahay liibaane waxaan idinka rabaa hooyo Soomaaliyeed iyo aabihii caruurta dhalay ku kaban laakiin xaqiiqadu waxay tahay cunug soo baxa caalim soo baxa waxa soo saaray waa hooyo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala allah idin yasiro hooyooyinka ku mashquulsan ayuutada ribac lahayd waa taa meesha ka soo baxday taa ku dadaala waa lagu dhibi waa lagu dardari laakiin wax kasta waxa ku hilmaansiina daqiiqada waxa meesha laga sameeynaa khayrka hal isku duubo markaasna hal loo istaago walaalaha wadana kii aan gacantiisa cishta afkiisa cishta ta ceebma laakiin hadda afkaadina laga anmaan waayo gacantaadina la waayo waa musiibo ummad isu timaada waxay isugu imaan lahayd ku dadaal waxay ku kaalmoobi lahayn ku dadaal ha kala tuurin ina ilaahay adigana talaadaada kala tuurin waxa lagu farxo waa aragtaan maanta nicmo ka weyn ma jirto kalaamkaas ilaahay oo awlaadaas quluubtooda lagu shubo ilaahay ha ku haayo quluubtooda kuwii dadka barana Allah ka dhiga ayagana waalidkoodna ilaahay oo ku ilqabowsadaan jannadii fardows ay ku helaan ilaahay ha ka dhiga walaalayaal waa idin soo koobi ilaahay tawfiiqdi khayrka wanaaga Allah idin waafajiyo odayaashii dib hal isugu noqdo tala aan oday lahayna ma soconayso hoggaan aan oday lahayn ma soconaayo dantu maxay tahay iyo maxaa inoo dana waa kala labo waayo dantu maxay tahay markay taa nin walba ra'yi wata laakiin maxaa noo dana cunuga quraanka xifdiyo ku kale ka hooseeya say u xifdi lahaayeen ayaa noo dana iskuulkii tacliimtiisa ugu fiicnaan lahayn ayaa noo dana wadankan xataa ayaga si amaan looga heli lahaa ayaa noo dana taa aan saaga imaadno ilaahay tawfiiqi khayrka wanaaga Allah idin waafajiyo sidaan meeshan ugu kulna rabbi jannadiisa fardows Allah nagu kulmiyo kuwa khayrkii wanaaga isu dardaarmo Allah naga dhigo kitaabkaas ilaahay barashadiisa kaalmeyntiisa ku isugu yimaado mar walban Allah naga dhigo fadhigaan oo kale Allah noo soo celceliyo annagoo nicmo iyo khayr ku sugan dal iyo dadka ka nimid Allah islaaxiyo quluubtooda Allah isu keeno wanaag iyo khayrkan Allah tuso sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan rabaa hadda inaan kelmad siiyo al-akh Sheikh Abdullah Abu Bilal والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام النبيين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين الذي أرسله رب العالمين رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول الحق تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ودوعيكي وحوايي قفك قرآن كبرنايو الله وحيري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن كوان فذوذيني أخرنتي سعيدتي كوانا قادنيسا dadka markay quraanka baranayaan waxay u qaybsamayaan labo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofka quraanka u fudud yahay wuxuu la jooga malaa'ikta safara al-kiram al-barara kan uu ku adag yahay wuxuu leeyahay laba ajirka akhrinta iyo ajirka dulqaadashada marka haduu quraanku ku fudud yahay alxamdulillah haduu kugu adag yahay alxamdulillah sababta ah labada jeerba ajir iyo darajo beleeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa idinkugu khayr badan kan quraanka barta dadka nasiibara
marka waxaan idinkula dardaarmayaa in aad quraanka barano markaasna dadka kale sii barano oo mar walba quraanka ku mashquulsanaano waayo waa Allah hadalkiisa kimaanto kale inaynu ardada dhageysano iyaga moodaa inay mudan tahay intii wax loo sheegay inay wax noo sheegaan waa munaasabad ay iyagu gaar u leeyihiin haddana waxaan rabaa inaan u yeero wiilasha dhankooda arday isaguna soo bandhiga kelmadii maanta loogu talagalay meeshaan Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مقعق وحسين علي جامع وحكاها أرضيذا مساجد التقوى فصلك أبو بكر الصديق سدحية تبنجر مركا دوكسيك بلاواي مركا بلاواي دوكسيك سفي عن قرآن وما أقولين كاسو سببتي إنو معلنك مروا البي ويديو محا قرآنك وقصو بحي ويسي كالا هذا كصوبح إيو معلنك مروا البي إنو دبتهجنا حافظنا مركا ليماذو والي عناننا وحال جاها محا وقصو بحي ويسي أنو ددالي هذا نوحا قاري مستوى إنا قرآن بدن برته وقت ير قيبتي ويلشة أرضا ويلشة إن أيونا سوغان فرحات بين ورانا إن شاء الله أي نوصل بندقان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بالتجويد والتحفيظ مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بالتجويد والتحفيظ ضيات كمد أينو أخرسه وحون كمد قرآن كريم ياسمين عبد الرشيد محي الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا مركزك التقوى ودين soo bandhigayo inay ardaydu ay kalimaad yeeshaan sidii aanu hore u sheegnay waxa laga yaabaa arday yar yar kali ah in dihnigu ama maskaxdu markiiba ku soo dhacayso arday waaweyn waa jirtaa oo idinku waa aragtaan oo dadaaba xirsiba kamid ah oo maanta halka fadhido quraankii qalin jabisay oo qaadanaysa shahaadadii waxa sidoo kale jira ragaan iyaguna ka dhicinino waaweyn oo ku wacad furay inay quraanka dhameeyaan bilaabayna ardayna ah waxaan rabaa markay inaan kelmad odaytinimo iyo kelmad ardaynimo inaan siiyo oo waliba mudan oo uu yiri waxaan rabaa buu yiri sidaas oo kale in la iigu xira calankaas oo anoo quraanka dhameeyay cali weheliye waa arday ma sha Allah mumayyiz ku soo dhawow quraankuna male weynaan iyo yaraan min al-mahdi ila al-lahdi say culimadu oran jireen darabta laga bilaabo ilaa luxudka la geynayo waxbarashada waan wadayaa marka inaga ka Soomaali ahaan in aynu waxbarashada waan weynahay oo hadda maskaxdaydii waa falaagdo oo maxamed baran kara ay arinta dhamaatana hadda khayru daliilin waxa oo ah dahaba xirsi kelmad baan siin doonaa iyadan insha Allah oo quraanka meeshii ay ku bilowday ku dhamaysay waa farxad cajiib ah bal cali weheliye oo odayn ah marna arday ah aan kelmad siiyo bismillah alhamdulillah ما هذا لاعب عسكري كل جد ثم كدمنا وعن ما هذا علنا وجياش عن آت كوقرع ضبطان وجياش عن آت كوقرع ضبطان مكروف اللي يمدي يجريكم أنا هذا الجرين حيلا يا بنينا وعن رأى مركا هنا على هذا رأوا ما أنت محل يسوي يا ربطانين على دين شو قرك يعرض على أركننا حد يرى عند شانو حد قرآن بالله حد عند شهادة حد عند الشهادة مرة وين واحد هذا كوالله نو هذا أيان دور جور وعن أركاسون تيستاجي حد مسألة الدين متشدي مركب معلنت الدم تيستاجي وعيري ما حد يسوي إنسان ما حد يسوي إنسان مركب سألوا في وعير وحيا دين شيء تران دين شيء يا أو محيا يا وإلهي الله عبصله وحكي لي دين مش شيء ترين أنت يوم بعدين شيء
maanta waa badannahay farxad baanu la fadhinaa meeshaan ilaahay baa mahaddaas iska leh waxaan idiin sheegaynaa sida tan aan haddeer meeshaan ugu soo ururnay inaan midnimo ugu soo ururno waxaan ku midoobi karnaa wax kale kuma midoobi karno haddeer inteenna waxaan isu kaana keena waa diinta waxaan ku midoobi karnaa inaan diinta islaamka baranno yacni waa tacab aad u adag subax walba u soo kallaho qofku qur'aan xifdiyo subax laga rabo 30 juz inuu xoogga saaro hooyo laga yaabo inay ku adag tahay hooyooyinkeeda la mid ah aad ugu adag tahay inay sidaas samayso ilaahay fadligiisna ilaahay wuu u sahlay inay maanta dhammayso quraanka halkaas fadhiya bal dareenkeeda daaba xirsi kaarshe ayaan rabaa insha Allah inaan siiyo bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ilaahi na abuura ayaa mahadda iska leh ilaahi noo kasay inaan islaan ahaana ayaa mahadda iska leh ilaahi نسيي معلمين قرآن كنا برتا أيام هذا إسكاله وسلامتهين مرتدا علوم ماذا معلمين تانا أنت معمول كسماي صودن ما هاد بانو علنا يا قرآن كان أنا كم قاعد وده بحس كارشورات ماشين قرآن كان وحام بلابي لبدي يكون يتضبدي وعي بلابي معلم كي معلم عبد الرحمن أسوي ويل يرى مركي أنا ولي ما قاعد يسبرم بدوكسي يجوجي ويربوسان كقات معلمين بدن بالله waxay igu soo xigsaday macallinkayga macallin jaamac asas 2 sano ay waxayd maxbuu ii dhigay waxay igu soo xigsaday macallin macallin Umar jooski 13aad inuu iga tagaan u maleynaya macallin Umarna macallin Cabdiraxmaan baa igu soo noqday ilaahay barakeeyo mar labaad asagaana ii qatimay ilaahay khayrka u qatimo quraanku aniga bag baan iska qaadan jiray waxaan ku gaaray aan u maleynayaa suuratul hajj 2012 baan waxaan aaday xajka anoo suuratul hajj ku jira waxay igu soo dhacdaan oo xadka joogana ilaahay ka baryo inuu ilaahay quraankaan aan dhameeyo iyo fuudeeyo ilaahay waa ay aqbalay meeshaan bag ka bixi jiray waxaan ka gaaray inaan 2 ka dhigo inaan 3 ka dhigo maalintaan dhameynayna 6 baan ka baxayay weegi gabdhaha Soomaaliyeed oo aniga ama ila mid ama iga yaryarna waxaan ugu baraarujinayaa inaan quraanku barashadiisa oo soo dhib lahayn in waqti la galiyo rabo mar rabiyo dugsigu inuu uga maqnaado umaleyn ma xasuusto laakiin 7 sano dugsiga dhiganayay haddii la isku koobo 5 maalmood ama 4 maalmood inay dhantahay intaan dugsigaas u gooyay oo anigu aan dantay u gooyay maalin kama maqnaanin waan u soo kalahay subax kasta ilaahayna way ugu guuleeyay inta kale aniga ila midkaan waxaan ku baraarujinayaa inay diinka ilaahay ay saasoo kale ay u bartaan oo u sarakacaan way baran karaan wuuna sahlan yahay dadaala waa gaaraa doonaana waa helaa hal la dadaalo diinka ilaahayna hal la barto ardada ila qalin jabisay waanu mahad celinayaa macallimiintayda waan ugu celinayaa ilaahay jannadiisa firdawso ha ka waraabiyo diinkoodana kii la qaado oo annaguna aan ku dhaqanaa Allah naga dhigo waa dhameeyeen wax tarimaysa ilaa ku camal falan naga dhig dhamaantay aniga ilmaha yarka ana u yar meesha inta quraanka dhamaysan maleynaa hadda maanta marka gabdhaha aniga yar oo meesha ii joogo idinkuna waa inaa quraanka ma ahan hooyo u sheed idinka ilaahay ku xafidaya aan xafidno ilaahay inuu na xafido wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay ila tahay suugaan hadii laga hadlayo magaaladaana la joogo dad baa jira hebel la yiraahdo Xaliimo Soofe Faarax waxaan malaynayaa inaad wada garanaysaan waan ilmaynayaa bay tiri programkaaga iyo waxba layma celiyaano kan layma horay tiri insha Allah suugaan bay rabtaa inay ku soo jeediso munaasabadan ku saabsan runtii ducana way codsatay loo duceeyo oo xanuunsan tahay ilaahay ha caafiyo caafimaad baan ilaahay u weydiinaynaa suugaanteedana waan u baahannahay inay kelmad ka tiraado insha Allah ku soo dhaw waxaan ilaahay uga baryahayaa caruurta aflaxday oo quraanka ku aflaxday ilaahay inuu ku xasiliyo quraanka waalidkoodna dambigoodii iyo dambigii waalidkood aaboodii hooyadoodna Allah dhaaf waxaan u imid islaam haddaynu nahay islaamku inuu isu damqado baa meesha ku jira walaalayaal oo ilaahay ha laga baqo oo ilaahay ha laga baqo oo lacagta iyo waxa aynu haysano wallaahi waa imtixaan haddaynan waajibkeenna ku gudan aynu ku gubanayno waar la baxo idinku la baxo berri u baxsada
warla baxo idinku la baxo berri bixiya oo idinku la baxo berri oo baxsada banka qiyaamaha la baxa bahi waxidin tara naftiina ku beera binu aadanina taheen intaasaan u imid gabdhahay waa ku gubaabinaya raggana waa ku gubaabinaya sidaa iyo nabadgelyo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا الإله سبحانه وتعالى أيام هذا إذ الإسكالة وسقناتي علماء صوماليات يكوي عربيات بوين لتشوغان أيجا نوغفلا وحي وانو يوعدي قرآن كإله سبحانه وتعالى الله برطي فدلقيسا waalidiintii way hadleen ardadiina way sheegeen quraan la barto iyo wadada dheer iyo inta loo maro intaba anu waxaan rabaa insha Allah taala laba kelmadood oo yar aad u gaagaaban waqti yar baa leeysi inaan mid iraahdo ardada quraanka dhameysay midna aan waalidiinta ilmahoodu ay quraanka dhameeyeen ku iraahdo midna lil jamii way inta nada kale in khunsayn doonta bi idin kariim marka koowaad إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إلهي سبحانه وتعالى مال سرقي دتك أهل قرآنك وين مديهين إن لوينيه oo qiimiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisu uu leeyahay annaguna aan muujino ayagana laga arka laftigooda waxa inala jooga marti inoo ah Falkenberg Sweden Sheikh Maxamed Cabbaas oo marti inoo ah runtii oo raba kelmad mahad celina inuu yiraahdo ardadaas maaha kelmad dheer ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Sheikh Maxamed fadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله فيكم إخواني جزاكم الله خير على هذا الموقف الطيب على هذا الجمع الفاضل إخوان مشايخنا الأفاضل أجادوا وأفاضوا وأن كلمتي هذه ستكون إن شاء الله مختصرة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم xafladda dhan maanta oo dhaweyno hadlayna wixii loo qabtay waxa weeye guddoonsiinta ardada inaynu shahaadooyinkii iyo abaalmarintii loogu talagalay oo markiisku ugu talagalay aynu guddoonsiino waxaa jira waalidiinta hadiyaad gaar ah ay ugu talagaleen si gaar ah bay taasi ahaanaysaa insha Allah oo ardada loo guddoonsiinayaa oo iyagu u guddoonsiinayaan insha Allah laakiin markiisku hadiyaadkii ugu talagalay iyo shahaado sharaftii loogu talagalay oo qalin jabinta ahayd intaba insha Allah in halkan lagu guddoonsiyo maanta idinkoo arkaya lana duuba haddii aan laydmo taasaynu ku soo khitamaynaa Sheikh Cabdiraxmaan Abiyad baan rabaa inaan ku soo wareejiyo mikrofoonka oo ku soo dhaweeyo inuu kelmadii xafladda ku aadanayd iyo guddoonsiintiiba isugu keendara haddii aan laydmo falyatafadal mashkuuran Sheikh Cabdiraxmaan Allahu rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin waxaynu maanta la farxaynaa oo aynu jawaayisiinaynaa caruurteena quraanka inoo xifdiday waxa ii muuqataa inta quraanka xifdiday yumbu ay ku eg tahay saan isleeyahay jaa'isadu ilmaha aadaabtiisu fiican tahay iyo akhlaaqdiisu ilmaha dadaalkiisu fiican yahay caruurta caynkaas iyaga laftooda ma qaar laga soo xulo oo markaasi ilmaha kale ugu daydaan ma jaa'isooyinka wax laga siiyo way la tahay in ay arrintaas arrin fiicnaan ay ahaan lahayd heblaaye hebel ama hebel oo loo doortay ilmihii sanadkan ugu akhlaaqda wanaagsanaa ama ugu dadaalka badnaa
in jaayisooyinka lagu daro waan beerin lahaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala waxaa kaloo ii muuqata xafladdan xaflad wanaagsan weeye carruurteenna inaan la farxin oo wanaagsan tahay carruurta sekondariyada ka baxda ee koofiyadaha inoo qaadata iyaga laftooda reer huuso waa idin odhan laha xaflad tan oo kale u sameeya wilalay gabdhaba isugu yeedha tan oo kale oo lagu dhiirigelinayo oo mas-uuliyaadkooda la tusayo si carruurteenna kalena ay ugu daydaan in loo sameeyo waan beerin lahaa iyadan haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidni illaah ardaydu waxay soo gaadhay sanadkan inuu yahay sanadkii 13aad warkaas sax ma yarta xafladdii 13aad yacni ilaahu tii ugu horraysay may hal qof haato ama laba qof waxay doontaa noqotay waa tii 13aad wey waxay soo gaadhay hadda carruurtaas waa dhowr iyo toban ee xafladaha qaarkood dhowr iyo 20 inaad ka dhigteen 23 qof oo qur-aanka xifdisan waxay soo gaadhay ilmaha hadda halkaa fadhiyaa ee qur-aanka oo keliya inaanay xifdisanayn arbiciinka iyo usuulu salaasaha iyo waxyaala caynkaasana ay xifdisan yihiin waa arrimo aad u wanaagsan oo runtii annagu haddaan reer Copenhagen nahay halkaa intaan fadhiyo waxbaan sawiranaya waxbaan duubanaya dadka sawirka jecel lama ihi laakiin waa xaflad wanaagsan oo aan rabo inaan magaaladii la tago haddii alla ka dhiga insha allah aan idinka imid oo ay idinku daydaan sidan oo kale idinku daydaan insha allah biidni illaah waxaa ii muuqanaysaa walaalayaal carruurteenna waa sax qur-aanka waa barnay waa u dadaalnay maa sha allahu in lagu daro maado af soomaaliya carruurta af soomaaliga loo dhigo nashiidooyinkan af carabiga lagu akhriyo lafteeda gabay af soomaaliya lagu daro ama nashiida af soomaaliya dee barraa baa inoo jooga barra dhowr goor baa la sheegay halkaasuu iga muuqanayay gabadhiisiina oo wata halka qur-aanka xifdisan tahay maa sha allah najmo ilaahay barakeeyo qoyska barre iyo qoysas kaleba insha allahu ha lagu daro muxuu ahay gabay yar af soomaaliya iyo nashiido yar af soomaaliya iyo waxyaala caynkaasna in lagu daro iyadana way u muuqanayso carruurteenna maado af soomaaliga aynu siino oo af soomaaliga ay naga dhaxlaan diinta keliya aanay naga dhaxline dheerish muslima aanay noqon ay noqdaan soomaali muslim haddii alla ka dhiga insha allah biidni illah ra'iiska ama guddoomiyaha shuurada markiska cabdiraxmaan shaafici khaliif ayaa insha allah inoo guddoonsiin doona ardada waxaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa culummadii faadil ee meesha ka soo qaybgashay waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dadka weyn ee meeshan ka soo qaybgalay akhyaarta rag iyo dumar run ahaantii waxay mudnayd in hadda ardada shahaadooyinka la siinhaya inay waalidkii carruurta dhalay in shahaado la siiya taas ayay ku ficnayd sababtoo ayaga la'aantood ooma malaynhaya marna inay yacnaha qur-aanka bacdallaahi markay ka sokow inay qur-aanka sidan u akhrin lahaayeen yaasir yare allah yaxfadu insha allah ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka ku barakeeyo hooyadii dhashay iyo aabbihii dhalay waa guul weyn ilaahay subxaana wa tacaala midhaha ku anfaco insha allah jazaaka allah khayr adeer allah yaxfadak maa sha allah cabdulkariim ibraahim shaykh axmed cabdulkariim maa sha allah allah yaxfadak jazaaka allah khayr ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka ku guuleeyo بارك الله فيك جزاك الله خير زكريا محمد علي زكريا محمد علي ما شاء الله زكريا الله يحفظك هذا شهادة هذا قاضو إلهي سبحانه وتعالى وحفظه والدك إلهي بركة عرورت انت عدب إن شاء الله محمد سعيد مؤمن محمد سعيد مؤمن ما شاء الله وحكوين أو قفل السيامة شرو إنه إلهي قرآن كسي حفظيي مرخاتي عدينية إلهي كبرك يا ذير ودير تايه اسكح فران بعض الله إلهي كنا نجحية في الدنيا والآخرة إن شاء الله عبد الله عمر أحمد نور عبد الله عمر أحمد نور ما شاء الله هذا الله يره جزاك الله خير هذا الله يحفظك جزاك الله خير نيرو قرآن كلا حفظ سن إلهي كبرك يا أبوابت الدنيا آخر ولا كفر إن شاء الله عقال جمال عقال جمال عقال ما شاء الله عقال مقع صومالي وضوطة الرسمية إلهي سبحانه وتعالى كبركيه جزاك الله خير الله يحفظك يحيى عبد الرحمن حسن يحيى عبد الرحمن حسن يحيى جزاك الله خير الله يحفظك إلهي كبركيه
أبواب الخير لا يكوفر الدنيا آخرة قبلها اليوم ما في إن شاء الله سمية فارح علي بيحي الله يحفظك قدر جزاك الله خير إلهي كوفر أبواب علمك الدنيا آخرة هو يلا سمعنا كل شيء إن شاء الله ويا الله أضيعه وهالله شقي سندس فارح علي بيحي ما شاء الله ولا بقول له شيء ما شاء الله سندس فارح علي بيحي ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك قدر جزاك الله خير laba gabdhood ee reer guriga soo saaray waa warshad weey gurigaas wuxuu u baahan yahay in la daraaseeyo khayrka meesha yaala Hamda Mustafa Abdullahi ma sha Allah Allah yahfadaka adeer ya jazakallahu khayr Allah ku barakeeyo Allah ku barakeeyo jazakallahu khayr Nasra Ibrahim Salat ma sha Allah imsira jirta adeer 10 sano Ilaahi subhanahu wa ta'ala xifdiyo wax alle yaala wixii la dhibsado Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dheeray عبد الرحيم ولا شمياه ما شاء الله يعني وحوي الله يحفظك هذا يا جزاك الله خير ما شاء الله عبد الرحيم ولا شمياه قرطي خير ان شاء الله وضفي عن بايسه ودد ولالك بايسه ان شاء الله خضراء عبد الرحمن حسن ما شاء الله الله يحفظك خضراء يا على ددال ان شاء الله الى يكبر كيو هو ينكا لو شقيو حنا محمد عبد الله حنا يروي ما شاء الله الله يحفظك حنا هذا انت لك بند انا كوغا ما شاء الله الله يحفظك حنا هذا محمد بشير ما شاء الله الله يحفظك هذا يا الهك حفظه الدنيا اخره بقى نجمه بره محمد فيدو نجمير ما شاء الله الله يحفظك هذا خير الله كسيه نجمه قال هذه هذا قاعده waxa ugu dambeeya waa ma sha Allah waa dahaba xirsi iyo foori iyo isku dari lahaa ma sha Allah Allah yahfadak jazakallahu khayr ilaahay ku guuleeyo ma sha Allah مبروك عليكم جميعا ان شاء الله تفضل شيخ waxaan ku soo wareejinaa xiriiriye تفضل شيخ jazakallahu khayr TV-ga Universal aan mahad gaar ah u celinayno oo ka qayb qaatay xafladatan in uu kaga qayb qaato in uu duubo oo uu ugu tabaruco markiiska taqwa baan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa iyo mas'uulka duubahayay oo hawsha u qaabilsanaa walaalkeen Faysal Karate duca ayaanu ugu daraynaa iyo ammaan intaba Universal TV si tadawucnimo ah oo runtii waxa weeyaan hagar la'aan ah ayay uga qayb qaateen inay duubaan oo ay ugu tabaruceen markiiska taqwa xafladda uu maanta uu qabtay in ay ugu deeqaan in ay duubaan oo ay soo daayaan haddii Allah idin waan u mahad celinaynaa mahad ballaaran walaal Faysal Karate oo noo duubahayna mahad ballaaran ayaan u soo jeedinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad khaas oo dheeraad aan ugu mahad celinayaa runtii tiimkii waxaan ka soo shaqeeyay oo hawshii aad iyo aad ay soo qabatay raggii iyo dumarkii masjidu taqwa idaarada runtii waxay mudan tahay in ammaan khaas la siiyo maamulka maadaama markaan ka fiiriyo dhinaca maamulka wax yarna ka garanaya dhinaca maamulka waxaan qirahayaa maanta in idaarada masjidu taqwa ay mudan tahay bilad sharaf in la siiyo runtii gudoomiyaheeda iyo tiimka la shaqeeyo dhan iyo ragga xubnayaasha insha Allah taala oo maamulka ximriisa iyo dumar ragga hadalka aan ku sii dheeraanaynin waxaan leeyahay Ows maanta sharaf weyn ayay noo tahay in xafladan oo kale aan ku qabanno magaalada Ows قرآن aad ugu qabsay waad namaasantiin jazakumullahu khayran Universal TV Faysal Karate magaalada Ows